shirkadda sifaynta biyaha ee Somaliland Water Technology ayaa maanta soo bandhigtay qalab cusub oo loogu talagalay sifaynta biyaha la cabo. qalabkaasi oo loo isticmaalayo guryaha ay ku jiraan qasabadaha biyaha laga cabo. shirkaddan oo ay leeyihiin muwaadiniin qurba joogahi waxay macluumaadkani ku shaacisay shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Burco, kaasi oo dadweynaha Burco u soo bandhigay qalab cusub oo loo adeegsanayo sidii biyaha looga saari lahaa wixii dhadhankooda bedelay si biyuhu noqdaan saafi ku habboon cabitaanka. maareeyaha shirkaddan sifaynta biyaha Cali Maxamed Oogle oo shirkani jaraa'id ay kala qayb galeen dhakhaatiir muujinaysa tayada biyaha ayaa waxa uu daboolka ka qaaday inay dalkan Somaliland keeneen farsamo ku cusub oo aanay hore looga shaqayn. ujeedada aanu ka lahayn furitaanka halkan waxay ahayd marka ugu horeysa inaanu daano ka dhigano shaqo mar labaadkana aanu dadka iyo wadanka soo kordhino wax cusub oo wax u taraya ama caafimaadkooda caruurta yaryar dadka waaweyn qof kasta oo kamid ah bulshada. sida awgeed waxaanu dadweynaha aanu hadiyo jaraale iyagana aanu inay ogaadaan in kulliba ay biyaheenu u baahan yihiin in kuwii hore laga gudbo oo maartay marba talaabo hore loo socdo. marka halkan waxaanu ku iibinaa oo aanu ku haynaa nooc kitchenka lagu xidhi karo marka aad kitchen ku xidhato biyahaagii way safaynayaan way filtaraynayaan marka hore qashinkii iyo wixii ku jiray la socday saxaro iyo suqul ayay ka reebayaan. filterka labaad wuxuu ka reebayaa wixii lagu soo daray ama chemical ha ahaadeen sida chlorine oo kale iyo wixii la socday ahaa minerals kale ayay ka reebayaan aan loo baahnayn. filterka saddexaad wuxuu ka reebayaa urta iyo dhadhanka xun intaba uu ka reebayaa banaanku ka dhigayaa. wuxuu tagayaa filterka macaaninaya ee biyihii dhadhankoodii bedelaya ee ka dhigaya biyo biyuura. filterada kalena waxay sii tayeynayaan laba filter oo ka sii dambeeya waa 6 darajo oo filtera 6 stage filtration. ka labada ugu dambeeyana iyana kuwii hore un bay sii taageerayaan oo waxay ka reebayaan wixii dheeraad ah macdanaha ku jira iyo wixii ura ama dhadhan xun la socda. waxa la socda haan taayar ama taangaayar waxa weeye waa pressure tank 16 jeer 24 saacadood uu buuxinayaa. waa 3 galaan oo 16 jeer oo 50 galaan per day 50 galaan 24 saacadoodba waxay ku filan tahay family-ga maalin iyo habeenkeedina cabaan inay cuntada ku karsadaan. Yaasiin Maxamuud Dilood oo kamid ah saraakiisha shirkaddani ayaa isaguna ka warbixiyay qaabka farsamo ahaan loogu xirayo xaafadaha kala duwan qalabkan. waxaan rabaa inaan idin sharaxaad kooban idinka siiyo qalabkan biyaha macaaneeya mashiinka biyaha macaaneeya. waxa lagu xiraa kitchenka lagu xiraa ama madbaxa. kitchenkani wuxuu leeyahay sink buu leeyahay. mashiinkan waxaanu xidhnay adigu 3 bilood ka hor. wuxuu leeyahay 6 stage 6 filter. saddexdan mid wuxuu macaaneeyaa mid wuxuu reebaa qashinka iyo wixii saxar ah ama ciid ah biyaha soo raaca. waa kaasina wuxuu ka reebaa chlorine biyaha la socota wixii chlorine ah iyo wixii minerals dheeraad ah aan qofku u baahnayn. kanina wuxuu ka reebaa urta biyaha wixii ur ah ee la socda. wuxuu u gudbiyaa macaan buu u gudbinayaa filterkaas oo kii macaaninayay. kaasina wuxuu u soo gudbinayaa labadan oo wixii soo dhaafay afartaa hore ayuu kanina ka saarayaa meesha. taangigan wuxuu qaadaa adigu 4 galaan oo biyo buu qaadaa 16 jeer ayuu buuxinayaa taangigan. marka adigu waa foosto biyo macaan ayuu reerku helayaa. haddii ay ku nooshahay guriga 10 qof haday ku nool yihiin biyahana way ku filan yihiin. biyihii caddaa ay cabayeen ee macaan ay xareeda ahaa kuway wax ku karsanayeen iyo kuway cabitaanka ku dhaqanayeen cabitaanka ka dhiganayeen ama ku qasanayeen. marka taangigani wuxuu u gudbinayaa qasabadan
qasabadana u gudbinayaa qasabadana waa tii laga cabeeyay weeye reerku ka cabeeyay sidoo kalena Dr. Xuseen Maxamuud Ducaali oo shirkaasi jaraa'id ka hadlay ayaa waxa uu xuseynay caafimaad ahaan sifaynta biyuhu tahay mid ku habboon cabitaanka kaasi oo xuseyn biyaha inta badan ay ku jiraan milix iyo waxyaabo badan oo aanu ishu qaban karin Soomaaliland ay keenaan qalab lagu safeeyo biyaha oo aan hore u jirin aan ay baahi aad u weyn oo laga doonayo dawladdu inay daboosho oo dadka ay ka eegto biyahan ama warshadu soo saarayaan ama dawladduba soo saarto inay biyuhu ay nadiif yihiin waxyaalo badan baa laga baaraa bacteriological test baa la baaraa bacteriada ku jirto chemical composition baa laga baaraa oo macdanta biyaha la socota waxa laga baaraa physical changes isbedel ama ur ha noqoto ama dhadhan ha noqoto marka insha Allah sida Cali ka waramay anuu saaxiib isku ladahan uu yahay wuxuu sheegay waxyaalahaas oo dhan ay ka qabanayaan mashiinada la keenay ha noqdo waxyaalihii solventiska ama chemicalkii ku jiray saxaradii ku jiray iyo kii ugu dambeeyay uu sheegay ultraviolet radiation oo isa bacteriada dilaya intaas oo dhan hadii la helo waxay biyahaas noqonayaan biyo badan biyo nadiifa oo la cabi karo oo qofka waxba yeeleen haddii biyaha bacteria ku jirto dadku ku shumaan sida meelaha waqtiyada abaarahan oo kale dhacaan meelaha biyo yaraadku ka dhaco kale waxaa dhici kartaa in chemical badan ku jiraan sida calciumta magnesiumta oo kale in keliyaha dhagxaan ka galaan sida goboladeenan bariga Caynaba iyo ilaa Ceergaabo ilaa gaadhiyo Ceelfeen oo kale biyuhu adag yihiin ay keenaan dadka keliya xanuun badan ku dhaco waxa kale oo ku jira in la sameeyo iyaga laftooda ay qaban karayaan iyo haddii dawladdu sameyn karayso looga baahan wasaaradda biyuhu inay keento laboratory marka dambe markaa biyaha la safeeyo la taskareeyo oo la ogaado kuwii la cabi karaya ma yihiin bacteriological testka u fiina chemical xaddi baa lagu talagalay inay jiraan calciumta chlorine potassiumta sodiumta in xaddi kaga jiraan fluorine ayaa jira xubno kamida dadweynaha magaalada Burco oo iyagu isticmaalay qalabkan ayaa ka hadlay isbedelka ay ku arkeen biyahan macmiilku horeeyay iibsaday baan hay isticmaalay marka family oo dhan baa xaafadii oo dhan baa wada cabtay ilaa kii yaraa ilaa xalay ka dhashay ilaa kii weynaa ilaa reerkii oo dhan baa wada isticmaalaya marka mishiinkan markaanu isticmaalay biyo safaysan oo saafiya oo xareed oo kala bad cabaysa oo family oo dhan baa kula cabaya sida marka meherada rag joogo ay u iibsadaan mooy saxado kale si xaafaduhu family ma wada iibsan karo si hadda hijiinkan yar markuu reerku uu qaato family oo dhan baa wada cabaya marka anaga oo isticmaalay wax cilado oo nagala kulantayna ma jirto mishiinkan anaga ayaa xidhanay teer garaynay oo mishiin aad iyo aad u wanaagsan runtii waanu kaga raysanay biyihii maxaan ku leeyahay dabada aan ku soo iibinay qarashkii badnaayay naga baxayay light fara badanna ma isticmaalo waxaan ku leeyahay yaro iska waxaan ku leeyahay aan badnayn ay isticmaalaya marka cabitaankii iyo maxaan ku leeyahay karistii iyo ciyaalka biyaha qasabada laga cabo ee magaalada Burco ayaa inta badan waxay ka yimaadaan ceelal ay hagto wakaalada biyaha kuwaasi oo isugu jira kuwa dhadhan ahaan adag iyo kuwa macaanba waxaana qalabkan uu kor u qaadi doonaa tayada biyaha magaalada Burco Cabsaaq Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Somaliland Burco